كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة البقرة آيات الوضق يلحية وحا إلهي سبحانه وتعالى أكليه وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. waxaa laga yaabaa inaad arrin aad karaahiyeystaan isagoo arrinkaasi idiin wanaagsan oo khayr idii ah. sidoo kale waxaa laga yaabaa inaad arrin jeclaysataan isagoo arrinkaasi aan idiin wanaagsanayn oo shar idii ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala aakhirka aayadda wuxuu ku leeyahay wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun. ilaahay isagaa oo ka idiin wanaagsan, ilaahay isagaa oo ka aan idiin wanaagsanayn. waa maxay haddaba madluubka iyo arrinka lagaa doonayaa? arrinka ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga rabaayay waa maxay? waa inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saarannaa, arrinkeenna ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhiibannaa, aaminnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wax wanaagsan inuu inala doonayo, wax wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala ina waafajinayo. yaynan murugoon, laa taxzan ina allaha macana. ha murugoon, arrin kastoo kugu yimaada ilaahay u dhiibo, una kalsoonow rabbigaa subxaanahu wa tacaala. ilaahay isku xidh, ilaahay aamin, ilaahay isku xidh. isaga arrinkaaga ilaahay subxaanahu wa tacaala wanaajinaya, isagaa garanaya sida kuu wanaagsanee khayrka kuu ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu tala saaranno, ilaahayna subxaanahu wa tacaala mar walba iyo meel kastoo aynu joogno ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu ka cabsanno. wassalaamu calaykum waraxmat ullah.